Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Labadan kelmadood ee ah nisht iyo kind waa laba kelmadood oo isku eg, laakiin goormaa la isticmaalaa, sidee baana loo isticmaalaa. Insha Allah waxaan isku dayayaa in videogan aan ku sharxo insha Allah ka faa'iideysi wanaagsan. Aan ku horeyno kelmadda nisht. Kelmadda nisht waxaa la isticmaalaa marka wax adjectief ah aad diideysid. Tusaale, das Auto ist schwarz, gaadhigan uu madow yahay. Das Auto ist nicht schwarz. Markaas adjectiefku wuxuu noqonayaa schwarz, groß, klein. Ich bin groß, anigu waan dheerahay. Ich bin nicht groß. Saas ayaa loo isticmaalayaa. Markasta oo wax adjectiifa aad tilmaamaysid ama aad leedahay waxaasi maaha sidaas, ma odhanaysid das Auto kein schwarz. Waxaad odhani das Auto ist nicht schwarz yaad odhanaysaa. Waxa kale oo la isticmaalaa nisht marka aad wax verbi ah diideysid amaba magac la yaqaano ah, sida tusaalahan soo socda. Ich rauche, sigaar baan cabaa. Ich rauche nicht, anigu ma cabo sigaar. Rauche amaba rauchen waa verbigii cabitaanka ahaa. Marka aad diideysaad leedihid anigu ma cabo ama an waxaa ma sameeyo ayaad isticmaali nisht. Tusaalaha kale, das ist Ali, kani waa cali. Das ist nicht Ali, kani maaha cali. Waa nomankii amaba qofkii magacii la garanayay ayaad hadda diideysaa. Marka aad diideysid verbiga waxaad odhani ich esse nicht, ich gehe nicht, ich mache nicht. Tusaale kale markaad qofka aad leedahay maaha, waxaad odhan das ist nicht Nimco, das ist nicht Umar, das ist nicht Maxamed. Waxaasoo dhan waa verbi iyo maxaa la dhahaa nomen. Nisht ayaad wada isticmaali, kayna ma isticmaaleysid. Haddaba marka la isticmaalayo kind waa goorma. Unbestimmte Artikel waxaa weeji marka laga yimaado der die daska. Taas waxaa weeji bestimmte Artikel. Unbestimmte Artikelna waxay noqonaysaa ein, eine iyo einen. Haddaba tusaalaha soo qaadano. Das ist ein Haus, kani waa aqal. Ayntan waxay tilmaamaysaa unbestimmte Artikel, waana aqal aan la garanayn qofkii lahaa. Markaas aad diideysid waxaad odhani das ist kein Haus, kani ma ahan aqal. Ma dhahaysid das ist nicht Haus. Marka uu soo galo possessive pronomenka waxay caddaynaysaa aqalkan qofkii lahaa in la garanayo. Tusaale waxaad odhan das ist dein Haus, kani waa aqalkaagii. Markaad leedahay kan maaha aqalkaygii ma odhanaysid das ist kein mein Haus. Waxaad odhan das ist nicht dein Haus ama mein Haus, waayo qofkii lahaa waa la garanayaa aqalka, waana possessive pronomenka. Possessive pronomenka iyo unbestimmte Artikelka videoyaal hore oon kusoo sharaxnaa jira, waxaanad ka hoos heli kartaa videogan hadda aan soo gelinayno hoostiisa. Tusaale kale, das ist ein Lehrer, kani waa macallin. Ayntu waxay tilmaamaysaa in aan la garanaynin macallinkan oo waa unbestimmte Artikel.
markay tahay unbestimmte Artikel waxaad isticmaali kein. Das ist kein Lehrer. Kani ma aha macalinka. Tusaale kale, das ist der Lehrer. Kani waa macalinkii. Der waa bestimmte Artikel oo waa qof la garanayo ama macalin la garanayo. Marka waxa la garanayana waxaad isticmaali nicht. Das ist nicht der Lehrer. Kani ma aha macalinkii. Marka ay tahay unbestimmte Artikelka waxa la tuurayaa aynta oo waxa la soo gelinayaa kein. Laakiin marka ay tahay bestimmte Artikel iyo possessive pronomenka waa la deynayaa sida tusaalaha das ist nicht der Lehrer. Nuwa waxa laga horeysiinayaa nicht. Haddaba markaad isticmaalaysid sats buuxa ama jumlad buuxda sida tusaalahan oo kale, ich kaufe ein Auto, waxaan iibsanayaa gaari. Marka aad diidaysid waxaad odhan ich kaufe kein Auto. Aynta ahayd maxaa la dhahaa unbestimmte Artikel ayaa la tuurayaa, kein baa soo galaysa. Ich gebe dir den Computer. Waxa aan ku siini computerkan. Den Computer wuxuu ahaa der Computer. Markaas waa bestimmte Artikel, waa wax la garanayo. Marka wax la garanaya ay tahayna hore waxaan usoo sheegnay in la isticmaalayo nicht oo satska oo buuxa intaa lasoo dhigo bas nicht la gelinayo. Ich gebe dir nicht den Computer. Kuma siinayo computerka. Ich gebe dir einen Computer. Computer ayaan ku siin. Einen waa unbestimmte Artikel, lama garanayo computerka qof kale ama wuxuu yahay. Ich gebe dir keinen Computer baad odhani. Marka sats unbestimmte la isticmaalayo sida tusaalahan, ich habe Zeit, waxaan leeyahay waqti ama waxaan haystaa waqti. Ich habe keine Zeit. Ma haysto waqti. Waa unbestimmt. Sats waa yacni lama garanayo. Markaas wuxuu qaadanayaa keine. Marka satskaas unbestimmtiga uu soo raaco adjektiif sifa ah sida tusaalahan kale, ich habe viel Zeit. Waxaan haystaa waqti badan. Viel waa adjektiif oo waa sifo. Marka ay sifa imatana waxaad isticmaali nicht. Keine ma isticmaalaysid. Ich habe nicht viel Zeit. Ma haysto waqti badan. Iyo tusaalahan kale, ich spiele Fußball. Waxaan ciyaarayaa kubad. Ich spiele keinen Fußball. Kuma ciyaarayo kubad. Ich spiele nicht gut Fußball. Si fiican uma ciyaari aqaani. Sidoo kale halkan waxa sifa ah good. Markay sifa tahayna waxaad isticmaalaysaa nicht. Haddaad u bogtay fiidiyooga halkan taabo si aad noogu xidhnaatidna halkan taabo.